لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، وسورة البقرة آية لحية ستيتا. قال الله تعالى: ألا وحر أولئك كواسي الذين كويوي اشتروا يبسدي الحياة الدنيا noloshan adduunyada bil aakhira bitarki aakhira aakhira iyagoo ka tagaya falaa yukhaffafu canhum lagama fududaynayo alcadaab cadaabka aakhira lagama fududaynayo walaa hum yunsaruuna loona hiilin maayo. walaqad aataynaa muusa alkitaab, nabi muuse dhabnimo waxaanu siinay buu ilaahay kitaab ilaahay uu ku soo dejiyo towraada. وقفينا وحن راعيني من بعده النبي موسى دبدي بالرسل رسولان كذب جينا استبس عدي. واتينا عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم وحن النبي لهي البينات معجزين على العط. وأيدناه بروح القدس وحن كحوتشني ملك الله إلى ملك الجبريل. أفكلما جاءك مركز تويدي ما در بنو إسرائيل أو رسول مركز تويدي ما ده بما لا تهوى أنفسك وحاني نفتي نتشعلي مركز لا يماد استكبرتم وايس وينيسين ففريقا كذبت قيبوا بينيسين رسول الله وفريقا تقتلون قلنا والله ينيسان. وقالوا وحيد هذين بنو إسرائيل قلوبنا غلف قلبي يضو ويدبولين بل بلهيد ما دبوليه لعنهم الله بكفره إلهي وحو كفر كنا عضلي قال لماذا يسميين فقليلا ما إن يرى آذو يربى يؤمنون إلهي الربينية وإيمان الآن دور كآية ضوضبا وحي صوبا لغيان عذر هذه كل عي ummadaha inaga horeeyay reer banu Israa'iil cudurka cid ku dhacay marka lagu sheegana karantiime iska gali way oo ka feejignood ha ka qaadin yuu ku saraynin. inaga naqaano meel marka cudur ka dhaco qolada caafimaadkuna ka digaan dee dadku kuma degdegaan. inaga karantiimeeya baa la halkaa way karantiimaysan ilaahay baa karantiimeeyay cudur la qaadana ka diin la'aanta ugu daran. cudurkooda oo horeeya waxa weeye adduunyo iyo aakhiro. aakhirada marka laga warramayo macnaheedu waxa weeye jannada. aakhiro waxa u taagan hadda jannada la shariya khayrba xagaas ku dambeeyaa jannada nicmada adduunyada iyo ta aakhiro marka la isu barbar dhigo iyagu waxay qaateen nicmada adduunyada tii aakhiro weyn laaweyn way isku iibsadeen waliba. arinta natiijadeeduna waxa weeye inuu ilaahay cadaab ku awaal mariyo adoomaha oo aanu ka fududaynin oo cid u hiilisana aan la arag. la yukhaffafu canhum alcadaab wala hum yunsaruun. cadaabkiisa ilaahay dadka adduunyada doortay aakhiradiida wuu ku cuslaynaya cidina ka fududayn mayso. waa ceeb weyn markaa insaanka hanka yarba adduunyada ku hawlan oo kaligeed u orda. insaanka hanka weynina ee aafaaqdiisa iyo aragtidiisa iyo iimaankiisa uu sareeyo wuxuu aad ugu hamiyayaa intuu ilaahay ka raali noqdo inuu jannada helo. inta ilaahay ka sokaysa wax qancinaya ma jiro. idan haddaynu wax yar ka tilmaano alfarqu bayna mataaci dunya wa naciim alaakhira dhowr qodob baynu ka soo qaadan si aad u fahamto wuxuu ilaahay noo sharaxayo. متاع الدنيا نعيم الدنيا أوران ماينو لكن هو متاع الدنيا وأري بحنت القرآن كنا بريه الدنيا ده سابان كده يرى أيامها الله يستو هي النعمة وين آخرة دنبايس فروق وحياة وحول الحياة أنا إسبربر إيمان كريم فرق جوهر يوامد ابتلاء وامتحان يوم وحوي متاع الدنيا مشهودة والنعيم الآخرة موعودة. alaabtan yara adduunyada waa mid la arkayo ta aakhirana waa mid la ballan qaaday.
ummad badan bay markaa taasi ibtilaysayoo dee indha ku garaadla ah oo tan yare macmacaankee u muuqanaysa unbay leeyihin tanaabay noogu dhanta dadka laakiin aragtida dheera indheer garadka ah ee iimaanka lihi taa ilaahay u ballan qaaday bay ku kalsooyin oo ogyihiin tan inay ka qiimo badanta waa tamyiis si dadka lagu kala saaro wey taas farqiga nicmada aakhira iyo tan adduunyadu xataa haddii laguba siiyo ay leedahay waxa weeyaan mataacu dunya qaliil siduu qur-aankaba ilaahay uu ku caddeeyey nicmada adduunyadu waa wax yar qul mataacu dunya qaliil waalaakhiratu khayru liman ittaqa nicmada aakhirana waa mid khayr badan nicmada adduunyadu waa in yar balma qaaradaha waxa yaallo dhan la isugu kaa daro rasuulku wuxuu inoo caddeeyey sala allahu calayhi wasalam qofka ugu janno yar waxaa la siinayaa ka ugu janno yar weeye ee gadaal naarta ka soo baxaye markii u dambaysayna soo galay jannada adduunyada waxa yaallo 10 jeer lagu dhuftay adduunkan waxa nicmo taallo oo dhan baa 10 jeer loo laabaya oo laakiin tan ka duwan marka qaliilkaas waa farqi jira weeysna furuuqda waxa kamid ah waxyaabaha ku kala duwan yihiin waa naciimul aakhirati afdal min haythu an-naw' nawciyada marka la eego soomaad maqlay alaabtan adduunyada waa shay koobiya iyo waa original waxay imika fasakhmaya iyo wax asalade waxa asalo 5 sano jiraya iyo shay jiraya 5 bilood baa imika la wada iibiyaa muuqaalka isu eg China iyo ha u badnaadeen meelaha waxay ka soo waaridaan waaye alaabtan alaaba salama expire-kiina wuu ku badiyay liibixina wuu ku badanyay dhicitaankiina waa ku badan laakiin halka waa asal nabi maxamed wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam mawdicu sawt in uu la dhigo jannada aba adduunka waxa yaalo dhan ka khayr badan dumarka jannada mid kamid ah haday adduunka soo eegto caalamkan qaaradihiisa kala duwan waanu udgoonaanaya waanu iftiimaya islaanta halkan noocaas halkan laga helayaa waati ma jirto mid ku dhawaanaysa waxa soo dhacada oo dhan hadii la isu keeno wax caalamka udgoonaynaya ma jiro alaabtii baa waxyaabaha kala duwan nicmada adduunyada ta aakhira waxa weeye gaaladu isku iibsadeen aljannatu khaliyatun min ash-shawaa'i jannadu waxa qofka ka xumeeya nicmada way ka marantay hadii adduunyadana iskaba barwaaqaysan tahay dhagahanay kaaga baxay القرآن كأكسو شرحيه لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما تنبنا ما مغليان هذا البلا معنانا ما مغليان لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لغونا مجره بيننا مجرته لا فيها غول ولا هم عنها يزفون نوعي الكل كالورن جرى لو سخرام جرى إيو nacnacadii khamriilaha iyo wixii ma jiraan imika hadii adduunyadan mid iska madax yahay mid iska barwaaqaysan yahay maalin walba idaacada wax ka xanaajinayaan qaar baa ku ciyaaraya qaar baa sanka ka marmaraya qaar baa dhagaha ka qaylinaya sariirtiisu ku mashquulsan yahay isagoo raaxaysanaya dhagaha looga bixi maayo waayo dadkii baan iskhilaafsanayn oo quluubtoodu waa qalbi kaliya buu nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ma murmaana tasbiix ilaahay un bay wadaan bukratan wa cashiyan sidii xadiidkii saxiixaynka sheegayay nicmada jannadu waa mid baaqiya ama daa'ima nicmadan adduunyaduna waa mid zaa'ila bal adigu isbarbar dhig wax weligiiba jirayay iyo wax ayaama ku dhammaanaya alla wuxuu subxaanahu wa tacaala maa cindakum yanfad وما عند الله باق وحل وحا هيسان مرنيا الله اكتيس وحيالنا ودائميا ان هذا لرزقنا ما له من نفاد انيغا جنادaydi wataasaan soo bandhigay buu ilaahay mana dhamaanayso bal adigu ha ku xiiqin hadaba wax ama aad ka tagaysa ama ka tagaya nicmada ama aad ka tagaya ama iyada ka tagaysa taajirki isagoo iska taagan baa maalkii laga cayraynaya oo faramadnaanaya ama iyadoo maalku camiran yahay xoorinayo ayaa laga dhax qaadaya jinaasadiisa furuuqda waxa kamida ay ku kala duwan yihiin alaabtan adduunyada haddaad u camal fashood aakhiro ilowdo waa cirib xumo iyo ciqaab laakiin alaabta aakhiro haddaad u camal fasho saasa loogu aayaa aakhiro kaliya haddaad imika u camal fasho oo adduunka bay iska dayso gaajo kaga noolaato farxad iyo rayn baa ku dambeynaysa laakiin haddaad aakhiro iska ilowdo وأدونك كليات كشقيسو فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون باكو دنبيس
marka waxyaabahaas oo dhan waa furuuqda waxa ugu sii cajiibsan dee halkaa duruufta halkan taalla ama taalo qofku hadduu halkan iskaba nicmaysan yahay xataa duruuf adag baa hor taalla waxay odhan jireen hadday geeri ku dayso gaboobaa ku daynayninba kii madaxda ahaa kii maalqabeenka ahaa kursigii baa laga soo dulqaadaya isagoo dhareerinaya hadda nicmadiisiina way ag taallaaba waba laga dulqaaday uu hadli karaya soomaad maqlayn ayaamaha madaxweyne hadliba kari waayeba dabeetana kursigiinbaa asbaxa kawmatan min ashaxm wuxuu noqdon kuus xaydha dabeetna kursigaa dhinacaa looga duway marka hadduu geeridii kaa yaro dib dhacdo gabowgii baan ku daynaynin cudurkii baan ku daynaynin cabsi iyo murugaan ku daynaynin oo labada dadkiiba dhibay ah warwar waxaan ku daynaynin oo ku dhibaya wixii fudalaadka la odhan jiray saxaradii kaadidii dhiiggii waxaasaa dadkii waxaasoo dhanba ma laha beesho waxa uguba sii weyn oo furuuqda ugu cajiibsan aakhiro waxay leedahay jannada marka la tago allahayna geeye waxay leedahay laba arrimood aan adduunka lagu haynin oo in ilaahay la arko uu kaana raali noqdo in ilaahay jannada lagu arko aan adduunyada lagu haynin isla markaana uu ka raali noqdo qof adduunkan uu ka raali yahay ilaahay oo raali noqoshaha loo ballan qaado la isku hubaa waa mid daliil sheegay ambiyada ilaahay saxaabadii jannada loogu bushaareeyay ma badna laakiin qof kastaaba wuxuu leeyahay tolo maxay ku dambayn qof kastoon daliil u sheegin inuu ahlu janno yahay ama ilaahay ka raali yahay warwarkaa ku badan ilaa uu taabanayo jannada inta ka horeysa warwar buu hayaa ilaahayna adduunyada laguma arkayo jannadunbaa lagu arkaya marka haadihi lfuruuq arrimahaasoo dhan waxyaabaha jannada iyo ku kala duwan yihin nicmadan adduunyadu weeyaane dee yaynaan xiiqin oo meesha nooca u maran yaynaan ku xiiqin si aynaan u daalin alla subxaanahu watacaala wuxuu ka warramay haddaba nimankaa adduunka ku daalayoo wuxuu ilaahay tilmaamay wixii toosin lahaaba inuu siiyo kitaab baan siiyey buu ilaahay kitaab waa nebi muuse kitaabkii loo soo dhiibay weliba rusulna waa loo soo diray nebi muuse keligii aan ahayn rusushii badnayda ka dambaysay yuushac iyo yasac iyo nebi daawuud nebi sulaymaan nebiyullaahi ciisa oo ilaahay halkan uu ku sheegay intaasoo nebiyaaloo isdaba yaallay isdaba socday waxay sheegaysaa inuu ilaahay u xujo dhameeyey subxaana wa tacaala nebi ciisena bayinaad baan siiyey bayinaadku waa mucjisooyinkii yaabka lahaa had iyo jeer khawaariqulcaadaha ahayd dee rasuulkaa isagaa lagu ilaahay uu ku qancinayay in dadku ay rumaystaan inuu rasuul yahay dee dadkoo uu soo nooleeyaa ay ka mid ahayd iyo dadkii bukaya uu bogsiinayay iyo kuwii cudurrada qabay iyo qur-aanku siduu caddeeyey ruuxulqudus ayaa ilaahay uu ku xoojiyey oo barbar taagnaa malakuljibriil waa magacyadiisuu ka mid yahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam siduu ku caddeeyey xadiidkii saxiixa waxaa gabayaagii rasuulka uu ahaa xasaan binu haabit ayuu ahaa xasaan ibnu haabit markuu gabayayo gabayadiisii waxaa ka mid ahaa wa ruuxu lqudsi waxa uu ka mid ahaa jibriilu rasuulu llaahi fiina وروح القدس ليس به خفاء ملك الجبريل وانا دح تاغنيه او نقرب تاغنيه الهي بان نغو خوجي وروح القدس ليس به خفاء ما نقرصون ملكاس يا اود تاييدكيس يا خوجينتيس ما قرصونا نبينا وحورن جرى اللهم ايت بالروح القدس الى ملك الجبريل كو خوجي waxay cadeynayaan inuu magacyada malaga kamid yahay magaca isaga hay ruuxul qudus cid isbarbar taagana ilan mayso dhaqankoodu waxa weeye afa kullama jaakum rasuulun bima la tahwa anfusukum rusushii baa imanaya waxay la imanayaan waxay reer banu israa'iil nacabi ilaan gaal diin lama agmariye diinta islaamka gaal uu diidan yahay markaasay isweyneeyaan nabiyadiina qaarna way laayeen qaarna way beeniyeen culimadu waxay leeyihiin labada ficil mid waa maadi midna waa mudaaric ka hore waxa weeyaan fariiqan kadabtu qoro waa layseeno dee waa nebiyadii badnaa qolana waa disheen waa dilaysaa dilkii baaba weli sii socdaba mar hadduu ficilku mudaaric yahay weli wuu socdaa dilkii oo rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxay isku dayeen inay sunna ku dilaan sixirna ku dilaan maalintii khaybar gabadh baa soo samaysay neef fadhiyahoo sunbay soo mariso markuu nebigu dhadhamiyey ayuu iska dhigay oo ilaahay u digay subxaanahu wa tacaala
ويرى وحول ناف كان مصنع استنا هابيدا محاك اللي في دي هذا الرسول تينا وحنا وجينا أنا كدبين هديك لا ينقابنا السنابان دونين مركا رسول صلى الله عليه وسلم مركو سيدي من أيي وكيلها ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع أبهري ولو أن دريمي صنتي مالنتي خيبر لإسيي وأن دريمي لكن هذا أيها البولها يقويسبون النبي الله عليه الصلاة والسلام أنا استوحوا لها مركو النبي وقفك يراك لقاده لبتقليه سان كاركش راتك كوسا ما يسي سنتاس إذن قال يا عدواكم مقين أولياء إلهي استاذ دراديد باطتك وقفض لك بضاء ومضا نبي محمد أن أركينا عليه الصلاة والسلام أبو بكر نسا سوك لوا سنتا سال قد لي حسن بن علي سجن سنتا سال قد لي عمر بن عبد العزيز سنتا سال قد لي عمر يا عثمان يا علي نديك عن على قد لي مركوارك واكم مقيه أولياء إلهي لكن وحلوت تحكي لنا يا ابن هاي شهداء لذلك برسول صلى الله عليه وسلم وحيليه علماء إلهي وحوت شمعيي نبي نمدي يشهد نمدي وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون قال لماذا ذي با إلهي وكنا عرفت قلبك أغلف كاهي وضبول وتشيس يا كبر ورها يقول دالي وحد مرسينا يسامت شري ومنتهى العناد قلبك سوى الدبولين إلهي نونا عضلي ما ذو سكسلية التوكيد بين قنيسا فقليلا يؤمنون فقليلا ما يؤمنون إن يرى هذه يا ضويا كما عليه ذو حوية إيمان ير هدي ليلي سقابان شريمبا نافينا وين نقول كرتها فقليلا إن يرى يرنا ما يؤمنون مر مينيا ولما جاءهم مركوي من كتاب من عند الله كتاب إلهي أكتي سكين وقرآن كان مصدق لما معه كأي هايستانا الرمينيا ووافقسا وكانوا وحيا يهود من قبل انتانوا كتاب كان إيماننا يستفتحون قرقار وحي ويدي سنشرين على الذين قرقار وحي إلهي كويدي سنشرين على الذين كفروا كوا قال هذا يقولون إلهي ونوغهين فلما جاءهم مركوا يمي يهود ما عرفوا به رسول كي قرنيين يا كتابك كفروا به ويك قالوا بين فلعنة الله نعدش إلهي يفوقينت إلهي على الكافرين قال هذا دشوا ذا يهات قال هذا دشوا ذا قرآن كريم كإلهي وحكوا حسيال كان يهود وحيابها أي عانك كويهم وحكم ذا أمانة درهذا أمانة درهذا وقدر أنه وحتى حق الدين تدوية ذا وحبك سيد رنبة الدين خيامة الدين marka iyaga oo marxaatiya oo og nabiga kaleey salaatu wasalaam marxaatigiisa oo marxaatiga quraanka og oo wada haya cadaynihi ay qariyeen markay madiina degeen reer bani qurayda banu nadiir banu qaynuqaac waxay oran jireen halka waxaan ku sugaynaa rasuul u soo hijroon doona istinsaar istiftaax wa istinsaar yastaftixuna bimaana yastansiruna إلهي بين نصر ويدي سنجرين waxay oran jireen kuwan gaalada imika aanu saysanay reer Madiina maalintaanu ka adkaan doonaa waxa weey Ilaahay nooga helin doonaa markuu soo baxo rasuul kitaab sida oo aanu isku waafaqsanahay markuu yimaado ayuu Ilaahay kuwan nooga helin doonaa markaasaanu ka garabsan doonaa وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا kuwii mushrikiinta ahaabay nasri weydi iyo Ilaahay oo nasri naga sii kuwa oran jiray aanu ka adkaano markaanu helna kitaabka iyo rasuulka nimankii halka taagnaa markuu nabiga u yimo ma arafu bihi ma waxay koobsanaysaa nabiga iyo kitaabka qur hadii la oran la rasuulku uu ka bixi lahaa laakiin waxay sheegaysaa falamma jaahum markuu yimi maxay ma arafu bihi waxay garanayeen waa rasuulkii waa calaamadihiisii وقرآنك كريم كها ووقتك صوب حيي وعدك صوب حيي وماشو إيماني انتما إلى مجال نخيل بدن أو عين كاي عين كاس إنه إيمان وهي وحآيات إنه فايدين يصدق النوع عاصر رقم إيمان الآن تأكل تاجن إن أي حق هاي لا نعبره فلعنة الله على الكافرين ميوعد يا متميعي
ciirciirkii muslimku hadda wuxuu keenay in la yidhaahdo waxba yaan gaalada la nacdal ilaahay baa iyagaba abuurta waa ilmo aadam khudbadaha iyo ka daayaha nacdaline wasoo kan ilaahay nacdalay adigu haddaad ka daysid dee ilaahay baaba nacdalay falacnatu llaahi cala alkaafiriin qur-aanku aad buu ugu soo celceliyaa in badan baynu soo arkaynay bal lacanahum allahu bikufrihim faqaliila maa yu'minuun culimadu waxay xusaanay u badan yihiin uun kaafir ama gaal mucayana oo shaksiyadiisu mucayan tahay un in aan la nacdalayn leanna ma garan karno inuu ilaahay hanuunin doono islaami doono haddii aan dee la ogeyn inuu gaalnimo ku dhinto taasi waa gaal wallahu subxaanaه wa tacaala aclam الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد وسورة البقرة تفسير كيدي آيات السقاشة قال الله تعالى إلهي بأوحي بئس ما شيء حماذي اشتروا به أنفسهم نفتو ذا يبدل قاتين وأن يكفروا إنك قالوا بين بما أنزل الله إلهي وحي قسودة بغيا إيقوا قردرانيا أن ينزل الله أم حاسديا أن ينزل الله إنه إلهي سودة من فضله ديرات كيس على من يشاء عدو دانو كسودة دوشيس من عباده الدوميزة تاسي حاسدة يعني كحوين كدق على السيد فباقوا وحي حنبارتين يهود بغضب على غضب على صارا وللكافرين قال هذا وحا وسقنا ذي سيدو دباء عذاب مهين عذاب دلية وإذا قيل الله مركا لقول هذا يهود آمنوا رماية بما أنزل الله إلى هاي القرآن كانوا سودة شيء رماية قالوا وحي نؤمن وحن رمينينا بما أنزل علينا كتاب كنا لقوا سودة شيء التوراة ويكفرون بما وراءه وحانك قالوا بيان قرآن كان كدن بيه وهو الحق واكي سقنا للراعي مصدقا الصغر رمينا يلي ما معه كتاب كي هايستانا إنه حقي هايبو شيئا قل وحات هذا فلما تقتلون محاء الله نيسان هدا أنبياء الله نبي يدي إلهي من قبل هراي محاء الله يسان أنوية معلوم إن كنتم مؤمنين هدار رميسنته النبي يدا إيا كتبتها محاء الشيء تلك سوح الشيء أين إذا رميسنين بين شيء يسان بئس ما اشتروا به أنفسهم هداي الدنيا دي بدل قاتين إيمان لآن ويبدل قاتين مركب بضيعها يهودا وحا كمدا إن إيبيان دين لآنت دين لآن بيدتك كحراشاني كإيبيان وحياة قد دالان تدكو إن أنا التزام ديني يالان حتى مسيحية بها وقفكو هديو لي هاي درين دينية أما وح آمنسي هاي waxaa laga yaabaa dee in waasicuun uu yeesho waxuun joojiyaan marka aad waa nidaamkan calmaaniyadda la yidhaha in diinta laga reebo dadka oo dhinacaa laga dhigo ama laadiiniga la yidhaha ama ilxaadka casrigan waxaa aada u soconaya waxaa la yidhahda ilxaadka oon ilaah iyo diintoona la rumaysnayn iyo aakhiro taasee aada u iibgaya waa qadiyadan odhanaysa inuu qofku xor yahay oo uu xoroobo diin iyo ilaah iyo rasuul iyo aakhire iyo waxaa ka xoroobu socdo uun arrinta noocaas waa gaalnimadii ay iibsadeen an yakfuruu bima anzala allah wuxuu ilaahay soo dejiyey ka gaaloobeen baqigu waa kibir waa xasad gardaro oo waxay xaasidayaan fadliga ilaahay uu siiyey cidduu doono oo addoomihiisa ah waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulullaahi muxamed ilaahay baa wuxuu doonay inuu fadligiisa siiyo waana addoomaha ilaahay aayaddu waxay cadaysay inuu ilaahay doortay rasuulka dee ma yuhuuddii baa diidi karaysa marka aayaddu waxay cadaysay waxa ilaahay uu siiyey rasuulka inuu yahay fadli weyn waa islaamnimadii diin kale la raacayaa ma jiro ina diina cinda allahi alislaam waa fadliga weyn dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaa wallahu du lfadli alcadiim alla wuxu uhi wakaana fadlu llahi calayka cadiima ilaahay dheeraadku ku siiye wuu weyn
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إلهي فضل جيان حريص تكسي على جو فرحه أدون كيرورين يان دين لا وياش كاساك خير بضا ووح لجو فرحه وحينات المامية آيات دائم كفى إذا سنينا قف كفضل وين بيلها يصي سيدنا النبي محمد هبا كردقا كوجو فضل وبدن خلق إلهي هدنا أرنتا سيناني كسارين من العبودية أدون مدي من عباده أي نتصنيس فضل با إله وكان فضل الله عليك عظيم فضل إلهي كسي وين إلهي دراتك كسي وين وحيجي وين قرانك وديني كلام النسخ رسولك أو خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين حتى ما أنت صار من كما صار يسئن النقض رسولك من عباده إلهي أدوميز إنه إلهي الضون لماذا نبت أكو جرنسيا باب فضل جوينا رسولك صلى الله عليه وسلم مركي عبادة وبديي إلا يرمى تسك خفيفس سو كان إلهي كافد دم بجهرية كيد دم بكارلاف وحول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا أو فلا أكون عبدا شكورا ميانا نقرين أضون مهدنقة إن أنا أضون مهدنقة أضون بان نقريا مهدنقة إلهي مهدنقة سبحانه وتعالى marka taasina mid weeye aad iyo aad u muhiima oo inaynu maaragtay ogaana ay tahay oo inaanay jirin adoonnimada dhaafi kara ma jiro darajo la gaaro waa taa qiimaha badan mar hadii la xaqiijiyo meel loo dhaafaa ma jiro maqaamada ama meelaha ugu qiimaha badan markuu ilaahay sifeeyay nabi maxamedna adoonnimadaas uu ku sifeeyaa tabaaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi ليكون للعالمين نذيرا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا هذا بدن بتأخير كريس marka adoon oranayaan ugu adoonnimadan dhaafayo darajaan gaarayo ma cibaadeysto oo waxaas waa khuraafaad iyo dadka diin la'aan oo lagu baaqayo diintoon la diido dadka diin la'aan laga iibiyo wacala Allah fabaa'u biqadabin ala qadab walil kaafiriin cadaabun muhiin wa ala Allah iyo dulli عذاب مهين عذاب كدلية إيه عراء الله أيا لقى دحلا إن علمك السماوي جاي الدين تإلهي لقى عرره أو لقى درك وحمرك رنتي أي تحقق مؤمن كائن آذو دريمه دين الإسلام كإلهي كانوا ينوجو من الشيعان أيه يهودنا كو إيدي قدودي أي كقدام قيمها إلا هذا أما هذه الشر رقم هذا كلا وحيابه كجد وانت أما دينها كلا كفر جمان هذا الدين دون الفطرة وديمها مركا لا دين تكليها أبورك وافقصا قفك بني آدم كي عادي قاسد والهاي أبورا ديانو لخلخلين الفطرة دي سي عادي هاي وسكندولي هاي وديمها الله يسوبر بردقو تكتاب تنسلام كو قادنا يا قف فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها قفك وسكا أقبلها دين تنوى دين تإلهي ديمها كلنا تدتك وطاء يا شيخ إن الدين عند الله الإسلام ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ديمها كلا عصر قال لها أيو تدتك الله إلى هذاك عبادة يستوحي كجد وانت ودين الحضارة والتقدم ودين هرمر دتك وهرك عيسى هرمر البحنمو يا وهرك عيسى حياة ديمها كلا تلمودكي يهود iyo baybalkii nasaarada dadku ay uga baxeen waxa kamid ahaa inuu horumarkii ka hor joogsaday inaga al-masalih al-mursala wal manafih al-aama ayaa jirta oo dadka islaamku waxa uu leeyahay daa usuusha ku socdo ilaahina noo cibaadeysta adduunyadiina ka shaqeysta shay kasta oo dan u dadka diintu uba diidayso adduunyada hadii aan daa usuul kale iyo akhlaaq iyo waxba u dhimayn ساد رادت بإلهي ونسيدا يوحد وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه قلكا وحكو الصغان ودن والدين سخرين انتفاع صدا ومصلحتي نية منفعاني ده كفايديست ودين عالمية والله لنا عرب كو غوني هاي يعيد قاري كو غوني هاي سهربا ينوسو أخرين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دين التوازن ودين السبيل التريساء روح لقفك كجرتا iyo jirkiis xiriirka uu la leeyahay khaliq iyo ku adoomaha la leeyahay xiriirka reerkiisa iyo ka diinta aakhiro iyo adduunyo
kan ka tago intan ku urur lama oran halka diinta nasaarada kale mesela ay oranayso dunyada la iska daayo fuqaraha la noqdo kaniisada la fadhiyo ama laga gabado xumaanta adduunyada ama dumarka iyo hawshooda iyo guurkooduba waa xaraam oo dib bay leeyihiin waa xarkaha shaydaanka laga dur alla wuxuu wabtaqi fi ma aataaka Allahu daar al-aakhirah wala tansa nasiibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk iska shaqayso ilaahagana u cibaadayso oo yees jeedin dadka qaar kood waxay yiraahdaan ruuxduna la ilaaliyo jirkana la baqtiyo ruuxduna xaqeeda ay leedahay jirkuna xaqiisu leeyahay الصبغة الأخلاقية أخلاق ونكسن ما شاء الله هو إسلام نبي محمد الله عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وحب الله يصدر يبقى أخلاق دي ونكسن إذا أنبياء أي لا إيمانيسي سأن أطلع ما يستره يا الهي يصدر وإنك لعلى خلق عظيم أخلاقيات وحيابا أمالها قرحية البحنما كستها الشيغان يعني أدون كستها هيان يهرو مركز تي markay dadka akhlaaqdu ka tagto way fool xumaadaan xayawaanka ay wagaadaan qaal maanta qofka la nool ee sirtiisa haya garan karaya ceebtiisa iyo fool xumada uu leeyahay iyaga laftigoodii baa markay la yaabeen caruurtii iyo daayartii iyo teenage-ka dadkan la yiraahdo halkay wax marinayaan waxay yiraahdaan bal diimaha waxa laga baro inuu xooga akhlaaqa ha ka soo heleene diintan iyada waxaa laga heli karayaa fiiha almuqawamaat lilxayaati araashida nolosha wanaagsan macaan baa laga heli karaya meel kale lagu hayn walow anna ahla alqura aamanuu wattaqow lafatahna calayhim barakaatin min asamaa macnaha waxa weeye waxay sheegaysaa dadku markay la yimaadaan amarkaa ilaahay inay badhaadhahooda iyo barwaaqadoodu badanayso diintani waa diin macsuum ah oo dhowrsoon siduu ilaahay kusoo dejiyaynu ku haynaa القرآن كان كريم يا حديث كرسول صلى الله عليه وسلم وسيدوا إلى هاي كاني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ما تشرك كتاب عالم كلا هايو حتى كوا لسو دشيا كلام إليهن أنا وكوا نبان كوا أجانينا أي بربر دقة يعني إسلام أما هذا ما أنت اللي يه الله يسلق أو ده هاي بربر صعدان يجا كمر خاتك عينا إلى شرين أنت أصلا وقت اللي سوى بدلا لا صوت شفاية ولا صوت شراك عمال لقو قري عد ما أنت أرانا يسسدي نبي موسى لو جسود الشيء أما نبي عيسى لو جسود الشيء بوي هاي متشو إذا هنا هذا عجيبة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم يدنا إلا بدل معها خلقنا إلا بدل معها لا بدأ إلى هاي ودين سبحانه وتعالى لذلك بإسلام هو معصوم لكن ذلك مسلمين معصومين معه إذا مركا لبدا إن لا يسكو قلدان معه وانا لبدا قالوا آدو قد دولان عيبها قف مسلمي ولاي هبي دوشا كساران إسلام هو دين دورسون لكن ذلك كو أبتر سنة يدوي قلدان كرا سيدا قانون كود بوية قانون كود ضد بدن أو دي موادنين تودا كميدا با كبان شيغا تشبية كو حد قد با مركا عيبتا إلا قانون كود الله من نسبايو قرآن كأنه نواساس وكلاية وحي كأنه يو ضد بدنا مسلمين الرجل لها ضمر لها ولاد لها ورلا لي ويخل دمي كرا وح معصوم ده أنبياء ده إلهي باتشره حتى فكرة الشيعة والقبائل أئمة ده إيو وداد ده دون معصوميه وقلط يعني الرسول شاهين حتى الصحابة رضوان الله عليهم هي قل دمي ولا لا كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون مركات دين تنوى دين معصوم ودورصون waxaa intaasii weheliya waa fariida in la raaco faral bayna ugu tahay ikhtiyaarna balihi inaynu ka baydhno marka waxyaabahaas ay la gaar tahay diintani qofka muslimka ay markuu og yahay loo xayeysiin maayo lagana khaldi maayo diintiisa diimo kale oo baadil ah وإذا قيل مرك الله إلى لهم كوا قال ذا آمنوا رمايا بما أنزل الله القرآن كان إلهي وسودة شيء قالوا وحي الله نؤمن بما أنزل علينا أنه التوراة بانو كيغانينا أما إنجيل ويكفرون بما وراءه كتاب كي كدن بيننا يا القرآن كان وهو الحق وحق مصدقا لما معه وحو وافق سيها كهيا سيدو وافق سيها لبا ريموت بو نقون كرتايو انه حق يهي توراة أما إنجيل أما الزبور قرآن كانوا شيغيا ككتاب كتابها
waxyaabii kitaabkaasi uu sheegayay marka sidiisa loo daayay waxa quraankan uu sheegayana de waa laba kitaab oo samaawiya isdiidi maayaan laakiin ugama rumaynayo kamana waafaqsana wixii ay bedeleen waxa lagu xujeynaya falima taqtuluna anbiya allahi min qabl in kuntum mu'minin nabiyo hore disheena maxaa u disheena darun sheegaysaan marka ninka nabi hore dilay ma ka rumaysanayno kitaabkiisa sax ahaa oo anigu rumeeyay oo isagiiba dishay kitaabkiisa mahar baad u jiidaysa walaqad jaakum billahi wuu idin yimi dhabnibo muusa bil bayinat nabi muusa wuxuu idin yimi idin la yimi xujooyinkii cadcada thumma takhadtum waxa samaysateen inta kadib العجل دبقي أيا سميستين من بعده انت وتجي دورسينا وأنتم ظالمون إذن كون ظلم السمين يا إذن كون ظلم السمين يا أيا دبي سميستين بولا هيد عفوا بيناتك إلهي سبحانه وتعالى حصي إنه نبي موسى سيئي محيه وحجوين على العدوي مركا حجوين كاس وحي النقضان لبابا وين نقضان آيات كمعجزات كالله يقام أما الخاتيغة ورسول كرسول لمديس ودين نبي موسى إنه قرأنا إنه إلهي سيئي 9 آيات آياتها سواء يوسع عجيب سنة أشي لا يابك بدنايد سيابها كلا دوان لو استعمالهم ومن البينات ويكمل إذا هيد قعنتن كلون هسكلين يو دول لعلهم لان بدي لها والله السراضي ومركو دوننا ودابتهم قبانا يا أمسينا يا ده أن افتين كيل هاي يا بوا يا waxyaabo kale oo Ilaahay uu ku xoojiyay baa jiro aynu soo aragnay dhagax u lagu taabtay oo deebiye ka butaaceen markay isxariifiyeen nimankii reer banu Israa'iil waa kii habaaray Ilaahay uu farsalna calayhim duufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayat mufassalat wa ayat halkana Ilaahay bayinaat waxa iska celin bakari waayeen xayawaana wama ya'lamu junuud rabbika illa huwa تكفي رأينا حريص إيه إنشير يرينا لقيلنا بالمجال لنا تكفي سيدا ورنايس أما مجال لنا إنشيره أما واحد قاد أودي يقول لك دقابا يضوفانا وريجيه تدحون ويا لهاي وحبوط تصي وحبي قادن لاي مركا بينات وهذه يتشارو حيو تاجين الرسول كمثلا مركب لهاي صادرة معجزات وحيو تاجن توا خارق العادة وشيء جدت كان كوقن عين لها إنه الرسول كان الرسولي لما مركو الرسول كي لهاي صادرة هديو مركبة بلابة وحيجة يا آياتين ودتك وآخرية حديثيو دتك استجيب مرة ما يست آياتي سنة ما يستن معايا مركا واحد شيء يستين لقاطه وحكاه الرأي محي إن أديك لقو قاطه مركا إما كأديك لقو قنعين تقف كل شيء يلا لقو قاطه لقو لقاه مركا سهرت هذا الكاغ نص عنايا مركا آياتها بينات waxay rasuulada ka dhaadhiciyaan dadkii baa la leeyahay bal kanoo kale ma haysan maya di hadeydaan haynin inuu rasuul yahay ku qanco waaye rasuul inuu yahay marka lagu qanco wuxuu yiri baa la rumaysanaya idan marka arin aad u muhiim ah weeye qofka wax sheegaya inuu ka fikiro horta isaga in laga rumaysan karo wax kastood sheegta aayadii xadiiska laga rumaysanay markay dadku ka shaqeeyaan adiga ama ay ku sanifsan yihiin ama aanay ku liqsanayn aanay ku aaminsanayn mar rumaysanaya waxyigii wanaagaad sheegayso ilaalinta kalsoonida ayay kalsoonida u beeraysaa marka bayinaadka marka mucjisaadkaas rasuulkii dadka ay ku qanciyaan ayaa wixii uu dadka u sheegay inay qaadanayaan lidalik baa waxa soo horeynay irhaasaadkii waxa ku xigaya bayinaadkii oo mucjisaadkii irhaasaadku waxa weeyaan muqaddamaadka waa hordhaca rasuulnimada sidii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam riyada uu arki jiray riyo arki jiray sida Aisha xusayso markaasay riyadaasi run noqon jirtay dadku waa ku rumaysanayaan markii dambana waxa bilaabmay dayixii ila soo kala dilaaciyay mucjisaadkii kale iyo mucjisadii weyneed quraanka
ثم waxay sheegaysaa intii wax badan oo uu idinku qanciyo mucjisaad yimaadeen ba haddana raggiina waaweyn ee ilaahay uu badbaadiyay ee ilaahay uu wax tusay dib dul fariisateen oo samaysateen arintaas waxay tilmaamaysaa canaadka iyo aqli xumada ay tilmaamaysaa reer banu Israa'iil idinka oo dulmi sameeyay wallahu subhanahu wa ta'ala الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وحين كنا حجرنا تفسير سورة البقرة آية الصدح يسغاشا قال الله تعالى وإذ وقت حص واذكروا waxaa xustaanoo dib u xusuusataan id waqti akhadnaa aanu qaadnay buu ilaahay miisaaqakum ballantiin warafacnaa fawqakum dushiina waxaanu dhignay aduura buurtii duurusiinaa dushiina la keenay khuduu baanu idin idhi qaata maa aataynaakum waxyiga aanu idin siinay biquwatin dadaal ku qaata wasmacuu maqla waxa la idin sheegay qaaluu markaa yuhuuddu waxay idhaahdeen سمعنا مقلا وعصينا ديدني وأشربوا وحل عبسية يهودا في قلوبهم قلبية ذا العجل أي حب العجل دي بيجي عابدين شعيل كيسي ذا قلبي ذا العبسية بكفرهم قال لماذا قالوا بين ثلاث قل وحات هذا بئس ما يأمركم بئس ما شيء ذا حماذا يأمركم وإذن فري به استجى إيمانكم rumayntiina noocaasi waxa idin fartayda xumaaday in kuntum mu'miniin adaa mu'miniin batiin reer banu Israa'iil dib uu ilaahay ugu noqday aad wuxuu ugu celcelinayaa rabbi ballan uu ka qaaday oo waliba ballankaasi waa miisaaq waa dhaar la adkeeyay oo xarka lagu xidhay sida shayga xariga loo xidho oo kale ayaa aad loo adkeeyay de waxa lagu waaninayaa oo la farayaa inay kitaabkii ilaahay qaataan markay warwareegeen wax la yaab laaba ilaahay uu dul keenayo arrin qasaba ku dhacdo buurtii baa la dul keenay duurusiina iyagoo arkaya waxa la farayaa oo arrintaana culayska loogu saaray inay qaadaan kitaabkii la siiyay biquwatin wasma'u awood iyo dadaalna ku qaata ilaahayna wax ka dhageysta marka isku darabaan la leeyahay dadaal aad samaysaan iyo ilaahay oo daacad u noqotaan biquwatin waa dadaalka wasmacuuna waa daacad noqda diintana labaasaa lagu wadaa haddaynu iska wada daacadno halkan iska wada fadhfadhiisanno diintu mana soconayso lagumana dhaqmayo lamana tixgelinayo shaygan inaad ka daacad tahay mabda'aaga iyo naftaada oo aad u socotaa waa muhiim ood u howlgasho sida ambiyadii ilaahay ama rasuushii nebi maxamed uu soo qatibay ahay daacadnimana way jirtaa dadaalkaagu hadduu nifaaq wato ama aqraad kale wuu iska fashilan yahay sida cudurkii munaafiqiinta ku dhacay labadaasaa la faray waa kuwii sujuuday markaasoo aynu hore u soo xusnay inay isyar marooriyeen markay sujuudayeen aimada qaarkood waxay idhaahdaan haddadan waxay aaminsan yihiin sujuudda ugu qiimaha badan inay tahay sujuudda dadban bay idhaha ismarooriska ah oo waxay leeyihiin faraj baabaan ku helayoo waa tiina lagaga daayay buurtii nagu dhici lahayd markaa mudaaraad fi sujuud inay qalloociyaan saasay ayay waxoodoo dhammi u qalloocaan halkan ilaahay uhi yuhuuddu markay ilaahay u jawaabeen waxay idhahaan samicnaa wa casaynaa culimada qaarkood waxay idhaahdaan samicnaa afkay ka yidhaahdeen wa casaynaana ficilkay ka yidhaahdeen oo intay yidhaahdeen ilaahay ow naga daa ballan qaadnayoo maqalaya ayay haddana iska weydaarteenoo waxay doonayaan bay sameeyeen taa way idhahdaan culimadu laakiin wax diidayaa ma jiro inay afka ka idhaahdaan intee oo intan ka daran bay idhaahdeen imisoo hadal oo ka xun ayay yidhaahdeen nebigii oo ag taagana ilaahay maqlayaan bay idhahdeen arina allaha jahra ilaahayna tusi naxnu abnaa'u llaahi wa axibbaa'u ilmo ilaahay baanu nahay bay idhahdeen ina allaha faqiiru wanaxnu aghniyaa ilaahay baa faqiira bay idhahdeen intaasoo hadal oo xun bay idhaahdeenoo tan ka sii daran lafdiga had iyo jeer
waxa lagu xambaaraa daahirkiisa iyo sida muuqaalkiisu iyo waadixa ilaa la helo wax ka duwa marka labadaba way yiraahdeen samicnaa wa casaynaa bay yiraahdeen nasiib daradaas ku dhacday inkaarta ayaa ku dhacday markay kuwan quraanka sidan ilaahay uu ku eedeeyay wuxuu ku amaanay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii iyo awliyadiisii iyo muuminiintii inay iyagu yiraahdeen maxay سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سورة آخر كذا كآخر وأماوي إلهي بقى إنه جمر خاتك عايز سبحانه وتعالى إن كده ذا لو يمرك أحي شيء سامرك آيات إن إلهي لقى قدون توحي جيس ذاتك قول كودي فعل كودي يسوافق صناعه حتى إنك وردي إنه قرآن كأنه آخرين إنه إنه كعبادة سنين إنه لكن فعل كأنه وعصيناه هاي كور وحيجي على كايا لأنه كل عبادة سنين تفسير كيسير دقي سنين كل قناة نشري دولتي أنا كل رقمين وان قبيلة دي كل رقمين وان شركات دي كل رقمين وان كل رقمين قيسكي وان وقفكي كل رقمين سمعنا ويته لكن ده عصينا على صعوبة فعلك أرين كان وحلا قال قفك الذي يسوي يسوى فخسين لما تقولون ما لا تفعلون وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه سوافقين قولك هي فعل كويس سوافقين سيدا لها أصحابته وكوا ماري وحوين وي إذا أرنتها سوا مهم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إسلام كوضا قالوا وضا قاتبوا لهي ومنها كان كالهرين سمعنا وعصينا إلهي وكو إذا يكوى عيبها إلهي وحكم إذا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ألك إلهي كتشعلان لها كتابك كتشعلان لها رسوشيس كتشعلان لها دبي بيتشعلان شعير ولبا آدو بدنا الأوران كره قلبي وذا عبي دبي طبعا ده قلبي ما عبي كره وده وحكوس كوسان وحوين أربوغه على حذف مضاف بالله الضروري وحلا سوق قدره وحو قلبي وعبي كره شعير بي بهالكاو قبين آدو بدن سيدي مركا النبي يوسف سيدي سيبا كجرتي قد شغفها حبا قبل يدا امرأة العزيز تراود فتاها إن كيف جعلت حافظة إذا شوقي بيكون حنت الدمر قد شغفها حبا وتقلك وضنه وقلي ودنها يكون ردت إذا قفك بني آدم كهدو وحجعلاده ولا قلت المام كراسيدا نسكو إذا برا بلاغة بدن إنه قلبي يسعب وين رهنا إنه أنا كهبل سوما هبل بو عبسية هبل باكر حد لي كورينا عبس أيو عبي حديث كي ضعيف كها يسقنا وحب تلمامي حكمة ها حبك شيء يعمي ويصم هذا وحش علاته وانا ذي كين دباليس وكين دباليس وانا تكون دباليس لقال أنا إن دلان قف صعونية مركز ده سوي الله بالله والله نسبوح نبري أما إلى هي تعلان يسا أما وحي كسور كذا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفي مركز وحو دليلكم إن قولت لنا يا قرآني حديث بالله ينفريا إن لابتن لبا ما ودا غليانه jacaylka inuu ku disayno caruurteena aynu barayno ee dadka lagu tarbiyeynaya oo iimaanka ah inuu noqdo ilaahay iyo rasuulka iyo xaq iimaan ma yeelanayo qofkaan inta jeclaan waay marka waa ceebayno nimanka rasuul haya ee aayaadkii mucjisaadka haya ee kuwii la akhriyay haya هذا ندي بقادول يورس أد بوجو حناق النبي عليه الصلاة والسلام صحابتي سيدا يجوا سفر كتير وحيران اجعل لنا ذات أنواط سيدا نمان كا وليه هندري سافها يرمر مريانة بركيستان بلا نقول نجيدان ويرى بركيستان النبي محمد ناصمه أد بو حناق النبي وحكر دي كنت يقول سيدي النبي موسى قال دي سياوي ويلادين اجعل لنا إلها كما لهم آله وما عابد يقار وحابد أنت صامرين بينهم بل أننا إله ناصمه مركا واحد علماء يقولون هو رادتك جميسي يقول لي جميسي قدتك الربايات وكحماية وانو شامية وحيابها وكخرابية وقوينا وحكم ذا فكر كوناكسني عقيدة لذلك بقى إلهي وكو إيدي فرعون قلدي سيبا مركو أخذ بدايي أيا وحا إلهي فاستخف قومه فاطعوه واستخفاف وفضيت صداه كاسو ما يسكاق بلان وسوسايا سامها ميانا سيدانا هين وايه وينورنت إذا مركا قميسي وراد حب الله قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين إيمانك كفراء الرماها النوع عاسي يدي بعابد فالحمة
مؤمنين ما يهدين ما كنتم مؤمنين إنا فينا وين قنكرتا ما كنتم مؤمنين هدا مؤمنين بتين واسدا شيغان ايسا تاسنا يدنا وح مارتين إلهي وكأن في وي إيمان كاس مؤمنين بانا هين قف إيمان لي وحا شيء قاحوا لكم الدور صدا حق قال الله تعالى إلهي باوحد قل وحات هذا النبي محمد إن كانت لكم هدية أيدين سقناتي الدار الآخرة دار تدنبوت شنذا هدا الذي يهودي عند الله الرب أكتيس أهاتي خالصة هدي أيدين قونتهاي من دون الناس ضدك كلال أنتو حتى شنذا كالجين لادهين فتمنوا الموت جارد الضارع إن كنتم صادقين هدارهم شيغيسان ولن يتمنوه أبدا جارد إيادي مشهد ولقود دوني مايا بما قدمت أيديهم قعمه وحي هرم مرسدين درادي وحكوه الرئيوغي والله عليم بالظالمين إلهي الظلم فلياش آد بوغي ولا تجدنهم وأتكهلي دونتا يهودا أحرص الناس ضد أردن يقود دال بديهين على حياة النلل ومن الذين أشركوا كوي قال ذاها عن كتاب لهين ويكسين نلل شعلهين يود أحدهم مديا كمدا يهودا وحو شعلها لو يعمر إلا عمر السياء 1000 سنة كن سنة وما هو أرنكم ما أهان بمزحزحه بدو كبد بادين يكاه من العذاب عذابك كمبد بادين يسه أن يعمر إلا عمر السياء كن سنة عمره يسلقه والله بصير إلهي وأركيا وكما قرصونا بما يعملون ضدك وحا أي سمينيا أي عمل فليا يهودا خرافات كودا يا كبر كودا يسقن عنتودا وحا كمدها oo ay oran jireen aakhiro nasaaraduna deewaabay sida quraanku ka warramay ku raacsanaayeen waxay oran jireen la yadkhul al jannata illa man kana hudan aw nasara jannada ku salaaxi maayo oo gali maayo qof yahuudiya iyo qof nasraaniya mooyaan hadal ay ku midaysan yihiin maaha laakiin yahuuduna gaarkooda ay oran jireen kuwan kale nasaaraduna gaarkooda ay oran jireen oo shaydaanka ayaa ka dhaxadlay oo taa u laqimay oo u sheegay sidaas ay oran jireen xadiidka saxiixiisu tilmaamaya nabiga calayhi salaatu wasalaam markay u yimaadeen waa kuwii taa la soo hor fadhiistay naarta ayaa galaya waxay dhahan nakuunu fiiha yasiiran uma takhlufuuna in yar baan ku jiraynaa intii aanu dibiga caabudnayn laagad kadibna muslimkiina noo weydaaranaya beentaasaa ilaahay uu shaybaadhkeedii sameeyey beentaasaan idiin sheegayaa ku shaybaadha sidan inay beentaasi aanay ka dhab ahayn dee nin jannada ku qanacsanoo inay diyaar u tahay jannadii oo halkaa u diyaar tahay ka ogsooni dee geeridaba uu iska taminayaya leannu rafaadka tanuu ka baxaya sida rusushaba dhaqankoodu ahaa oo rususha ilaahay markay sii dhimanayaan waa la door gelin jiray in dee adduunyada uu sii jooga iyo in kale markaasuu aakhiro dooranaya siduu nebiguba dooranaya calayhi salaatu wasalaam markuu sii dhimanaya caaisha inooga warramayso waaya haddii ay aakhiro oo looga jeedo jannada idiin khaalisto idiin gooni tahay geerida iska doonane haddaa ku run sheegaysaan jannadaa noo gooniya ninka janno isku hubaa ha iska dhaadhaco ilaahayowna dil dhaha sidaas wey islaamkeennu iyaga tan dhaabad baa looga dhig waa taxaddi baa la ydhaha dhaabad bay ku tahay waa lagu hor joogsanayaa macnaheedu markaa waxa weeye ma tamaniyayaanoo dee aayaddaaba caddays laakiin beentoodun baa lagu shaybaadhaya caddaynaysa diinteennuna ma ogola inuu qofku geerida tamaniyo midkiin yuu geerida tamaniin buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam lidurin nazala dhibaato ku dhacday daraaddeed ayaamuhu sii joogo ayaa dee fursad iyo jaanis u ah qofka mar kasta oo cimri ilaahay uu ku siiyo fursad bay kuu tahay inaad ka faa'iidaysato wey ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين يجا أكسون وحي دنبي جيستينو كهر رأي عقاب كي نارها كهر رأي نمكو كتاب كي بآخره أنا ويسيليه يعني يهودي وجين على آخره وحبولي مركب متمنية يعني جيري ده متمنية تاسوامد جيري واحد تمنية قفك بلنقات كي لها هيستا هيستا وحكهر رأي أنا ويجي تاسوامد مد الله بارك اللي في سين أنا جيري تمنية وحوي
adduunka marka la isu geeyo dadka jooga waa nimanka ugu nolol jecel bulaay waa nimanka ugu nolol jecel lidalik ba wasiilo walba iyo wado walba ummadaha ku dadaalo weeye in loo maro sidii loo noolaan lahaa ummado dhan waxaa loo gubayaa oo loo sunaynayaa oo loola dagaalamayaa noloshooda inaanay taataabanin ayaa ay ugu dadaalayaan cilmiga caafimaadka adduunyada dadka ugu horeeya barta wey bal si ay u noolaadaan si ay dhakhaatiirtoodaas u daweeyaan ha ka yaabin waaya ولتجدنهم أحرص الناس على حياة erayga calaa xayaatin waa nakiro waxyaabaa loo nakireeyana waxaa ka mid ah yaraan shaygaas uu yaryahay calaa xayaatin nolol kasta walow xayaatun maca dul nolol dulaysan ba haata haddii la idhaahdo cisi baad ku dhimanaysaa mise nolol dulaysan me aniga nololunba ii daran bule haba iska dulaysnaatee ila geeriduba mar bay nolosha dhaantahay qofka muslimka ah wuxuu aaminsan yahay nolosha dulligaa inay ka fiican tahay inuu shahiido oo dee ilaahay agtiisa shahaado u helo calaa xayaa nolol kasta noocay doonaysaa min ayi nawcin kaanat wa min aladiina ashrakuu waa kuwii aan kitaabka haysanoo dee iyaba nolol way jecelin gaal oo dhami nolosha wuu wada jecelin adduunka maanta haddii la heli lahaa kiniin laga liqo geerida walla kaasaa u qaalisanaan lahaa wax kasta oo la hayo waa la siisan lahaa laakiin ma jiro se u fikirayaan waxa weeye midkood wuxuu jecel yahay an yucamara 1000 sana 1000 sano in cimrigiisa laga dhigo wamaa huwa bimzaxzixi min alcadaab arrinkuna waxa weeye inaanay ka nabadgelinaynin cadaabka an yucamara in la cimri siiyo 1000 sano kama nabadgelinayso cadaab sidee uga nabadgelisa 1000 sano haddii cimriga yahuudiga ama gaalka laga dhigo dee waxa uu sii kordhaya un camalkiisii xubaa khayru nnaasi man taala cumruhu wa xasuna camaluhu dadka waxa uu khayr badan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka cimrigiisu dheeri camalkiisuna wanaagsan wa sharru nnaasi man taala cumruhu wa saa camaluhu waxa uu xun dadka qofka camalka cimrigiisu dheer yahay camalkiisu xun yahay kaasuu bay deen noqon lahaay munka sana maxay u kordhinayaan iimaan la'aawo waxay u kordhinayaan shar calaa shar noocyadiisa kala duwan bay u kordhinayaan idan markaa arrintu maaha cimri badan laakiin waa camal wanaagsan cimri badan maaha laakiin waa camal baraka leh cimriga intuu ilaahay ku barakeeyaa ku xisaabtan leh laakiin cimri badan ilaahu cimriga noo dheeree lifaaq raaciyo waxaad tidhaa ilaahu noo barakee cimri dheer waxaa odayaasheenii hore odhan jiray iyo camal wanaagsan wax fiican bay ahayd intaa lifaaq bay u samaynayaan cimri dheer iyo cuud iyo caruur mid walba barako ayaa la raacaya bal nebiyada oo dhan ducadooda eeg barako iyo khayr iyo waxaa la raacinaya lifaaq idan waxaa halkan inooga muuqda ummadaha waxyaabaha haziimada ugu wacan iyo wahankiiyo daciifnimada inuu ka mid yahay waxa la yidhaahdo adduunyo jacaylka iyo geeri nacaybka nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ummaddan wuu la hadlay kuwooda hore iyo kuwooda dambaba weliba ummadaha soo socda wuxuu ihi waxaa dhici doonta in ummadaha adduunyadu isugu kin yeedhaan calaa macna alxadiid markaynu af soomaali ku sheegna xadiid ummadaha adduunyada isugu kin yeedhan doona kamaa tadaaca alakalatu calaa qascatiha siday had iyo jeer xeedhada la wada cunayo dadku isugu yeedhaan war kaale edna nala cun kaale edna nala cun asxaabtu way yaabeeno waxay dhahaan maalinta awa min qilatin yaa rasuula allah miyaanu yarna muslimku maalintaa miyuu yari maya bi antum kaiir walaakinakum guhaaun ka guhaa'i sayl ma yaridina waa badan tihiin laakiin waxaad tihiin daad xoortan daadka oo xumbada daadka oo kalaa tihiin ayaa tihiin buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam asaabakum ulwahan waxa idinku dhacay buuhi xanuunka la ydhaha wahankaasi muxuu ahaa bay dhahan wahankaasi daciifnimadaas wuxuu nebigu uhi xubu dunya wa karaahiyat lmowt adduunyo jacayl iyo geeri nacayb iyadoo dulaysan tihiin ba adduunka saa usii qaniinsan tihiin ayaa laydin dulaysanaya laydin shukulaya almuhim markaa kolka dib loo eego labada arrimood ee ugu muhiimsan waa adduunyo jacayl ee muslimka dulaynaya waa min asbaabi alwahan waxa ducufnimada iyo dullinimada waxyaabaha keena waxaa ka mid ah adduunyo jacayl iyo geeri nacayb waxaa ka mid a bay leeyihin culimmadu waxyaabaha had iyo jeer keena wahankaa isaga ah iimaankoo daciifa dacfu liimaan nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف مؤمن كقوي أيا إلهي وكتشعل كالضعيف وهم كل عام مركاد قوة الشيء يروى قوة إيمانك قوة مرقية كوسنا هيد معها وقوة عقلك هي قوة فهمك هي قوة علمك هي قوة إيمانك وحيابها وهن كان وحكم إذا التنازع والاختلاف والتفرق كلكعة مسلم وكلكعة فرار رؤية شيء وسفكرون وايو يقولوا ولي بدنا نتشيسته إلهي بكدي قوي ولا تكونوا كالذين تفرقوا ضد بلنبا الدنيا صامرة اسخلافات شويها لم يدقننا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يا إذا فشل من هنا ودي نتجينه هاي اسخلافنا هكذا تجينا بالله سبحانه وتعالى ومن أسباب الوهن من أسباب الوهن وحيابها كان إن أمره ضعيفة ولما أمضى إسلام وحكم بذا التربية السيئة على الرضا بالذل إن هذه شر أمضى الله ربيه ولما دائر تودا صاك عيسى إن إسكالق بصلاة إن إسديبان وتلها على برجع روح الله ربين شر قفك مسلم كا إنه يهاي قف يسجى الدين تسوايس الرئيس يوم من الأيام نقال كات كان دور قسطنطينية هل كلا يقول لك لو رنشر برجع ورا اسطنبول لنا سديت بقول السنة لسوقي إن لا فرة نبي قلنا كسي بشارة عليه الصلاة والسلام نند اللي يرى فرت كفيقي كم إذا ضدك مسلمين تهلك تشجع عثمانيين تي أنا فرند ونبي هلك إن شاء الله تعالى سيد أنا إلهي ونبي سبحانه وتعالى لكن دايرتين يدك أنا مركز قلبي وقش بله لقول ربي أيوه هذا هو دبلي لفكاتها الدنيا ده سوكر يستاتها قوة صدحات باتها رقبة ماشى وحرنتها قوة سنبا لقى حرق وحا مركز ضدك تعليم الله وشيغو الكتراد الله وشيغو مامولك الله وشيغو قرمي سي آخرة توسية ساسو ما يقولون كل روحية وحا كم إذا بيلين علماء مصاحبة المخذلين إن ضدك لا وتنهروا بها ما لا رعسنتها إن ضدك هذه يشر وحدولين يا وقفك كأقدوا هذا وششايه اللفتيسي وهليه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه النبي الله عليه الصلاة والسلام كوصل ريال لقى مصر ريال وحكم إذا عدم الاستعداد إن أنا ندتك بالديار قرابة ينبع إلى هاي ندتك يسجل الرمية أو الذي ساو الله الضباغ بوجه وحلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم قال يا منافق بقى عبصدنا أودينا ديار سد بالله كأن الله هذا يواكي يجابوري إننا إن أبوري الدون كان إسكالها ضد كان سدوا كان تعلي ناشئ مركز ضد كوا مركز إلهي قادم وياه وأنا ديار بهاينو سيد عيسى كوي على الله أنا دلك كجب حلاين الضعيف أنا إلا الديار هو من أسباب الوهن وتم حب الدنيا وكراهية الموت عكم إذا جهلية أقنت واحد بدن بأمة ذكروا قادا عيسى شرفته هذا تاريخ ظهر وقف جوجي هاي تاريخ ذي أمة هراء تاريخ ذي أصحاب تاريخ ذي ضدك مسلمين تاي الهاين علم واحد بدن بضدك كروا قادا وحبراه وحلا كلام عاشا يوقف جوجانية يوحي السعودية يوحي النولية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ضدك علم قال إلى هاي وقرية سبحانه وتعالى من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين قفك إلى هاي وخير للدار وعيسى وكبدها لهي دين تفهم سياب النبي الله عليه الصلاة والسلام إذا مركز جهل جنا وأسبابته وهن ككيانة ومضى إسلام كان وحياة لابد لا يستوحى كم إذا إن آد لو جلد قالوا إن أنا دين توضى برانين إن أنا دين توضى برانين وقرآن كإيا قيم كلها إيا السنة الصحيحة النبي عليه الصلاة والسلام إيا السيرة ديسي التاريخ ديسي ضدك مناهجته أنا لو قرينا اللي قدر كيو الله يرى هذا إرهاب إيا أرجع حسد إيا وحاسة كبرنا إنسان بل إسكير يا راية ماشان سيدنا كنت تذكر إن كجد العينها وهالكاس بكلينا بل إنها خفيفية المهم كل هذه وحي كبدهن من أسباب الوهن مركا وحي نوجي سي waxaad ku heli doontaa inay yihiin nimanka ugu nolol jecel noloshaas dulliba ha wadato almuhim marka dadka muslimiinta laakiin ciisigooda iyo diintooda ayay dareensan inay ku nool yihiin ilaahayna waxaynu ka baraynaa ciis iyo sharaf iyo wanaag inuu nasiyo dhamaanteen iyo muslimku meel walba joogaba wahada ma aquluhu wa astaghfirullah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam